golaha sare ee dhaqanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo maalmihii la soo dhaafay ka waday deegaanada koonfureed ee gobolka Sool dadaal nabadeed oo lagu soo celinayo wada noolaanshaha laba beelood oo ku diray koonfurta gobolka Sool. Garaad Maxamuud Mashqare oo ah gudoomiyaha guddiga nabadeynta ayaa ka warbixiyay wixii uu qabtay isla markaana akhriyay qaar ka mid ah qodobadii ay ka soo saareen wajigii koowaad. waxaan idinku dardaarmaynaa waxaan idin faraynaa wixii ilaahayna farayo wanaaga wixii dhacay shaydaan baa ka dambeeyay shaydaan baa ku shaqale wax wanaagsan inaad ka dambaysiisaan waana dhexdhexaadinayaa oo cid baana dhexdhexaadinaysa wallaahi waa been oo billaahi waa been oo tallaahi waa been waxbaanu dilaynaa iyo waxbaanu qabanaynaa iyo Itoobiyaana wax ka soo qabanaynaa ma odhan karo ilaahay baan been u sheegaya hadda idhaa wallaahi idinkoo runta isu sheega oo idinku nabadda wada qaatamaya cidina inay dhexdhexaadin karin bal maxaad ogtihiinoo idinku meel dhigateen dad yahow yaa idin inkaaray asmada iyo idin cabsiiyey indhaha iyo idinka duubay oo dhagaha iyo idinka awday qalbigiinna nabaaday bal maxaa engejay wixii aad maxumeeyo ilaahay looma nisbeeyo ee afmiishaar hadal jeexayo oo uurka maari u jiifto waxaanuu akhriyaayo ku adeeganaya mid kale oogadiisa oday aad u malaysidoo arrintiisu janjeedho oo intii loo magacaabay ummaddii ka dhex saaray oo afarba meel ku shirayso islaan hoosta ka guuxdo oo afuufaysa warbeena kuwaasaan aqbasheen oo ilaah baad caasideen oo ummad yahay sharafkiinna waad ilowsantihiina ujeedda bayaanka ergooyinka masaalixda ee dhumay kadib shiqaaqadii colaadeed ee dhex martay labada beelood ee walaalaha ah kalana ah Cabdi Garaad iyo Maxamed Garaad colaadaasi oo keentay dhimasho dhaawac baraka iyo burbur dhaqaale oo baahay dhibaatadaasi kadib waxaa meelo kala duwan isugu yimi ergooyin nabad raadis ah kana kooban isimo cuqaal culimaawdiin guurti iyo waxgarad kale muddadii ay hawsha nabadeed ku jireen arrimahan soo socda kow in labada beelood aqbaleen nabad iyo xabad joojintii ayna ku dhawaaqeen labo waxaa kale oo ay ergooyinku nabaddu ku guulaysteen inay kala raraan ciidamadii labada beelood ee dagaalamay iyadoo qolo walba la geeyey goobo loo cayimay dhinac walba si kama dambays ah u hirgeliyaan xabad joojintii hore ay looga wada dhawaaqay ay wada qaateen in ciddii ku xadgudubta xabad joojinta loo aqoonsan doono in ay nabadii jabiyeen. dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay waxgarad kala metelayay labadii beelood iyagoo sheegay inay soo celinayaan wada noolaanshihii isla markaana ay diyaar u yihiin in la dhammaystiro nabadgelyo buuxda. waxaan leeyahay marka ugu horeysa waa qaadanay waxayna yidhaahdeen waanu ku soo dhaweynayna waanu ku guuxnay raalli baanu ka nahay anoo ku hadlaya afka beesha Maxamed Garaad anigoo afkii ku hadlaya beesha Khayr Cabdi waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynay waxaanu nahay sidaa hadda loo sheegay dad walaalaa ee isku mid ah waxaan idin yidhi waxaad la tidhaahaan waa nabad qaadanay wixii dhacay haatan annagu dib ugu noqon mayno war wixii dhacay waa markii saddexaad war 13 sannadood saddex gole waa taa oo kala ah saddex gole oo taa oo kala ah ee saa ka socota yaa samayseen war bal maanta waxaad tidhaahaan waa nabad qaadan war waad noo soo shirteen war waad noo timaadeen war haddaad duca naga rabtaan waxaanu doonaynaa maanta in qalbi wanaagsan oo farax leh aad maanta nabadda carabkiina aad ka tidhaahdeen golaha kaga hadasheen inay noqoto mid raandhii samaysa. ugu dambeyntii golaha sare ee dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa waxa ay u muuqdaan inay ka soo bixeen doorkoodii
mawlid ismaaciil haradigeed Somali News TV lascaanood.